rag badan oo halka joogo ayaa ma dhaweyto si khaldan wax loo geliyaa ay muuqday marka haddaan soo gaari weydaan xataa mushkilo male mikrofoonka naga soo gaarsi halka ka qayli waxba kama qabno marmar baa qoliyaha xamar joogo waxay lahaan waxay lihi waxaana kula liibay dhax marka xamar bay u qaateen kaligood inay leeyihiin hadday kaligood yeeshaan caasimada Soomaaliyeed buu weynaysa wararka mararka qaarkood hadda hadalka hadduu bato taraarax baa iska dhaca shalay wasiirka warbuu sheegay laakiin isaga inaan clarification ka bixiyaan mashruuca GLBG dhalinyaradi u shaqeyn jirtay oo mushaharka badan qaadan jirtay oo consultant-ka ahayd haddii uu mashruuci dhamaaday dawladda Puntland awood uma leh inay nin qofkiiba kumaan kun oo doolar siiso shaqaalaheedu waxay leeyihiin grades bay leeyihiin budgetkeedu wuxuu leeyahay grade-kaas ninkii aan ku qanacsanay kuwa badan oo reer Puntland magaalada joogo markuu mashruuca ka dhamaado meelahooda aad Soomaa kaas macnaheedu ma aha dawladdu inay lacag weyso hadii dawladdu lacag weysay jidka kala bayr iyo dhibirta dheer ka soo ark jid inaan dhisi karno waa ogtiin laakiin qofka dhahay mushaar bay weydo jid ma dhisi karto hadda qofka haddaan kan ka bilaabi lahayn waana la dhihi lahaa waa qaadan lahayn eedaas laakiin haddaaba wadnaaba haddaa wadnaa ma garateen marka waxaan rabnaa dadka ka dhex shaqaysanaya maaragtay wax ka dhex raadinaya meelaha qaybtooda waxaan qabaa dan nooguma wada jirto halkaas iyo siyaasadana la gelin siyaasaddu waxa la rabaa horumarka inaysan ku laaban oo kaas uu noqdo wax noo siman laakiin hooska tuurka kaleeto iyada waa iska ogolnahay ninkii qaadanaya xilliyada doorashada jirta ninkii wax xudxudanaya anagu ma diidanin waad ogeedeen oo doorashada markay maraysa dhulkaan oo dhan baan marnay war ilma adeerayaal waa codka nasiib soo saasina ma lahayn ma wax kale aynu sameynay haddana markay doorasho kale timaado sidii un baan oran doonaa hadii ilaahay ninkii kaleetana waa u furanta xisbiyaa ka jira dalka laakiin waxaan rabaa arrinta ku saabsan dawladda Soomaaliya iyo Puntland wax ka dhaxeeya ninkii hadda xamar wax ku haysta horaan u sheego hadda aanu ka hadli maayo idinka ka hadli doona laakiin ninkii dan Puntland u wada waxa la rabaa inuu waxna doonto danta Puntland difaaco oo isaga khaldamin wax hadda wax doonaysid macnaheedu ma aha dadkaaga xisaabtiisa inaad ku taraaraxdid mar walba difaaca meeshan ayaa qofka mas'uulka halka laga doorta waajib ku ah midda Soomaaliyeedna waajib ku yahay qofkii aan isku miisaamin karin labada hadii inuu siyaasadda isaga tagaa loo qaatay hadba dhinac u barbarinayo waxa la rabaa waxa in la isku miisaamo waxna waa wada leenahay waxna waa kala leenahay warkaas wax khaldan ba federaalku macnihiisu waa saas waxna waa wada leenahay waxna waa kala leenahay marmar baa qoliyaha xamar joogo waxay lahaan waxay lihi waxaana kula liibay dhax marka xamar bay u qaateen kaligood inay leeyihiin hadday kaligood yeeshaan caasimada Soomaaliyeed buu weynaysa haddii xamar ay noqoto caasimada Soomaaliyeed waa la wada leeyahay iyada waxna waa la kala leeyahay oo Puntland iyo Galmudug iyo Hirshabeelle iyo nin walba wuxuu leeyahay horta federalism waxa la rabaa inuu dadka si khaldan yuusan ugu dhicin sida saxda in loo fahmaa la rabaa anu macnaheedu markaan Puntland ilaalinahay ma aha inaan Soomaalinimadii ka tagin Puntland xaq bay ugu leedahay Soomaaliyana xaq bay ugu leedahay mid walbana xaqaas waxa la rabaa xaq sharci ah inuu noqdo mid caadifada lama rabo sharciga hogaamiye siyaasadda haddaanan sharciga lagu dhaqmaynin waxa laga shaqeynayo waa wax aan wanaag ku dambeeyay waxaan rajaynayaa insha Allah ma ku talagelin inaan war badan halka sheegay laakiin waa ila gashay rag badan oo halka joogo ayaa ma dhaweyto si khaldan wax loo geliyaa ay muuqday marka waa wada hadleynaayo hadalkan waa isaga caafimaad ku jira Soomaa in la wada hadlaa fiican idinkana waxa weeye haddaan soo gaari weydaan xataa mushkilo male mikrofoonka naga soo gaarsi halka ka qayli waxba kama qabno wixiina wanaagsan waa qaadanayna wixiina khaldanna saaro galaan leena war ka daaya halkaas in la wada hadlo ama toos waan wada hadleynaa ama hawadaan ka wada hadleynaa taasi wax dhibay leedahay male qofkuna kuma khaldana dhalinyarada mararka qaarkood loo biga barto dadku waa ilbixeen oo nabarashar gareynaya anaga raalli ku ah barashar nasaara wixii aad rabtaan nagu balkeeya wixii aan qaban karno waa qabanayna waxaan qaban kari weyno waxaan leenahay war waxaan lama qaban karo